magacaygu Cabdiqaadir Koosar Maxamuud waxaan aasaasaaha Koosar Sports Academy oo ku yaala xaafadda Jigjiga yar oo iskuulkii ugu horeeyay ee kubad lagu barto maalinta Khamiista iyo Jimcaha waxaan Harhab markii ugu horeysay ku arkay social media qaybta ay ku leedahay Facebook saasa keentay inaan Harhab la xiriiro waxaan kala kulmay soo dhaweyn badan fiican waxaan u gudbiyay fikirkaygii waxaan noqday dadkii ku soo baxay tababarka ka bacdi markii aanu tababarkii qaadanay waxaan noqonay dhalinyaradii fikirkooga lagu qancay fikirkii ay soo gudbiyeen Harhab waxay siisay maalgelin lacageed oo equity oo qiimaheeduna ahayd $8,000 lacagtaan ku guulaysanay kuma filnayn waxa mar labaad la naga caawiyay tarbiya California platform in aanu ku urursano lacagta taas noo saamaxday inaanu gaadhno qadarkii oo markii hore ahayd 8,000 in la isiyo caawintii dambe ee tarmiyana wixii iga caawiyay inaan 8,000 oo kale ku urursado 16 kana businesskaygu ku balaariyo dunida oo dhan waxa ka dhacay COVID-19 oo saameeyay businessadii adduunka oo dhan businessadii uu saameeyay la xiray baanu ka mid ahayn anagu ee albaabada loo xiray ka bacdi markii aanu bila xidhnayn wala naga furay iyadoo shuruudo lagu xiray waxaanu dabaqnay shuruudihii lagu xiray ciyaaraha caalamiga ee FIFA kale waxaan yaraynay tirada dadka soo galaya maadaama jimicsiga wax loo baahan yahay ahaa markii dambe la furay waxaanu dhignay faraxalkii waxaanu sameeynay inay dadkii lambarkii galay yarayno in daawashadii laga xidho garoonada oo aanay dadka kala soo galin waxyaabo badan baanu dadka ayaan xumadooda eegnay intaanay garoonka soo galin waxyaabahaas aan kaga hortagnay markii dambe ee businessadii dib loo furay intii ay maalgelinta helay isbedelka ku dhacay businesskayga amba aniga marka hore garoon yar buu ahaa garoonkii 3 jibaar ka weyn cafeteria tukaan waxyaabahaas soo kordhay halka shaqaaluhu 2 ka ahaa 9 bay maanta marayaan marka waxyaabahan faa'iidooyinka ay keentay ay ka mid ahayd Harhab maalgelinta ay ku samaysay meesha waxaan dhalinyarada kula talinayaa inaanay fikirkooga la dhuumanin oo ay u bandhigaan sida Harhab oo kale waa maalgelin equity tan qaato kale waa to businesskaagiina wax taraysa adigana aan waxba ku yeelin dhalinyarada waxaan soo jeedinayaa in ay mar walba ku dadaalaan si fikirkooga ugu gudbin lahaayeen